وهاجاك داوديال يعني هل كان كسوق النهاي وتشيل كوين مجال هرجيسة صدر كيسان سراكيشة يعني هو إذا مدى كل دواني سوماليلاند جارهان إذا مدى أسلوبته تليه إذا مدى أسلوبته وسيركي وسارد عدالة وسيركو حجينكي وسارد وحبرشة تليه حجينكي كودهان با يعني سراكيشة كل دوان هل كان تشوجا أي واحد أي وربعينتا جارهان تلفزيون قرن كسوماليلاند أي سر رسمي ولا هذا قابتن أو تشيل كوين مجال هرجيسة وحنيش يجن إن هبيراته وررك كل دوان يكتشر السوق اللي بومبوني أنا وحبة كتيرين إسلام مركزنا قابتن أو يعني تيل كوين مجال هرجيسة واحد باتو أو كذا عضي هبيراتي أنا كتيرين كده هم بقى المسؤولين تقابتن يكسبون أو جوه الريو تليها إذا مدى أسلوب تجمهورية الصوماليلاند وهالكاسي كهاللي ما أنت أو تعرف صدقها تنكبشي أفراد 2022 أيتاي شقا غير أو شوبرا بواحد كذا عضي بلغ كو حبسي وين مجال هرجيسة ويكون dad ugu dhow 100 qof waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbuus ah oo u tiranayeen edeb darro in loo soo geliyo in kale ka bacdi qaar baa ka faa'iideystay buuqi dhaxiisa oo askartii dhagax ku tuuray askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin ma ay sameeynin sidii ugu wanaagsanayd nin askariya oo Somaliland oo haya maxbuus ay walaalayihiin oo dambi u xiran oo ilaalinayay way u galiyeen jeelkii uu ku jiray qolkii uu ku jiray imikana qol walba ninkii ku jiray waa ku jira wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibirka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay askartaas hase yeeshee askartu way karayeen in xabas ku dhufsaan qofkii dhagax ku dhuftay ما ييلين أنكو بقادنية وي كنت لقل قف قرى أو محبوسة أو يقعني قاعدي ما شفت أسكتينا لبن المويانو داو قاعدي لكن أنت كلام مركب ولا سوداي هو كان هذا كيما يسبسال ينكر جوينا تذك بومبولنا يي كشيء كينا يي إن أي واحد عين أذكر قضية لقى بابي waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeenta ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa in askari loogu talagalay inuu maxaabiista iyo leeyahay qodigii baa nin maxbuus ka qaatay oo ku faltamay waxaanu rabno in sharcigu wixii uu leeyahay la naga mariyo kana yeeli mayno cidna haddana xabsiga magaalada Hargeysa wuu degan yahay wax dhiba oo ka taaganna ma jiro waxa kaloo jira dadku inta badan waxay sheegayeen oo la saddex mariyo kale inay baxsadeen maxaabiis arintaasi iyada waxa jira taaba soo gaarnay albaabka weyn meeshii ay ku tukanayeen maxaabiis waa dad islaama waxa loo soo saaraa meel banaan ay ku tukadaan waa la soomeeyay banaanka ay ku tukanayeen ee qolalkoodii ka soo bixin mooyaane gudaha banaankii ay inta ay ku wareegaan iyagu oo qolwalba u gooniya ayay dhex joogeen wax dibadda u baxsaday iyo wax fakaday midna ma jiraan wax dhaawacina ma jiraan sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland ayaa halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii kamid ahaa guud ahaan ummadda Somaliland waxaan u sheegaynaa inay tahay nabadgelyo inuu jeelku nabad qabo inay maxaabiistu nabad qabto inay ciidanku nabad qabto waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa ciidamada asluubta taliyaha iyo taliye ku-xigeenka iyo taliyaha xabsiga iyo hogaamada iyo dhammaan ciidanka oo had iyo jeer marka shaqaaqada ay shaqaaqa yar dhacdo si midaysan oo ah gudashadii waajibaadkooda xaq ahaa uga hortaga waxaan kaloo u hambaliyeynayaa dhammaan ciidamada kale ee qaranka ciidanka militariga iyo dhammaan mas'uuliyiinta wajaranka ugu sareeyo ciidanka booliska oo iyana si degdega iyo militariga oo dhan oo iyaguna markii shaqaaqadan la maqlay si degdega u soo gurmaday oo ciidankii walaal saaxiibadooda ahaa degdeg markaa ugu yimi guud ahaan waa nabadgelyo weeye ma jiro wax dhimasho ma jiro waxyeello maxaabiista loo geystay ma jiro maxaabiis ciidanka qoryo ka qaaday dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland ayaa fariin u diray saxaafadda iyo bulshada kala duwan ee Somaliland in aan wararka noocaas oo kale aan saan loo buunbuunin isla markaasna maalinta noocan oo kale ah aan bulshada warar been abuur loo sheegin waxa nasiib darro ah
bulshadeennii qayb ka mid ah haddii la yado waaheen baa gubatay inay dabdamiskii iyo ciidankii gurmadka ahaaba dhallinyaradii ka horeeyaan waxaa nasiib darro ah haddii la yado jeelkiiba wax ka jiraan inay bulshadeennii ciidankii iyo waajibaad gudan lahaa iyo dadkii shaqadaa lahaa ay ka soo horeeyaan waxaa nasiib darro ah in saxaafadeennii iyadoo aan hubanti la gaadhin inay markiiba uu warina ka baxo waxaana aada uga digaynaa bulshadana ka codsanaynaa waxyeelo waa dhici kartaa waaheenoo suuqi ugu weyna baa gubtay caalamku wax weyn baa ka dhaca in haddii shaqaaqa dhacdo oo ama dhakhtarka dhaawac la keeno oo baabuur dhaco waxaad arkaysaa in dhakhtarkii uu daweyn kara la yahay bukihii loogu talagalay oo ay markiiba bulshadii qaybi ka horeynayso waxaan uga digaynaa inaanay dhakhtarada xeryaha muxuu ahaa arrimaha dhaca baananka haddii wax dhacaan ama iskuullada ay wax ka dhacaan in loo daayo cidda hawshaa wax ka qaban karta dhakhtar baa wax ka qaban kara haddii wax ka dhacaan xero ciidan haddii wax ka dhacaan ciidan baa wax ka qaban kara in laga daayo isdhacyaaca in laga daayo taas ayaan baraarujin lahaa oo ka digaynaa waa ogeydeen habeenkii dhaweyto suuqii ugu weynaa baa gubtay maanta caasimadii somalilan dabdamiskii iyo ciidamadii waxay waayeen meelay maraan bay waayeen waxa kaloo aynu dareen dib u jalaacaynaa jeelasha somalilan yaa ku jira ma arday baa ku jirta ma jaamiciin baa ku jirta yaa ku jira jeelasha somalilan waxa ku jira dadkii bulshadooda dunuubta ka soo galay kii wax soo dilay waa ku jira kii terroriska ka soo galay waa ku jira kii tuuga ahaa waa ku jira kii kufsiga sameeyey waa ku jira maaha dad saxlana kuma jiraan wax waa ka dhici karaan markaa yaan lala yaabin haddii wax ka dhacaan maxaa yeelay dadkii bulshadooda eedda ka soo galay baa ku jira sidaas uu taliyuu sheegay wax dhibaato oo weynina ma jiraan askar muxuu ahaa dhaawacantay oo hawshaasina waxa ay ka dhacday sidaa looga sheegay maxaabiis gudahooda iyagu kala cawday ayay ka dhacday oo qaarkood ay rabshad sameeyeen intii ay ciidanku ka saarayeen ba inay qaar kale ka faa'iideysto rabshad walayaala ayaa ka faa'iideystay intay ciidanku ka saarayeen kuwii rabshada sameynayay sidaa daraaddeed wayna kaa jeelkii joogna dhammaan waa wada nabad qabnaa ciidankiina waa nabad qabnaa shaqadiina sidaasay kusoo gabagabowday bulshadana waxaan mar labaad ugu celinayaa waa in ciidamada amniga iyo qaranka ciidamadeena kala duwan ee waajibaadka weyn inoo xambaarsan ee aynu ku hurudno hadduu booliis yahay hadduu asluub yahay hadduu ciidanka qaranka yahay hadduu ka immigrationka iyo xuduudaha ilaalinaya hadduu ka dabdamiska yahay hadduu ka badda yahay waxaan codsanaynaa in ciidamadeenna in gacan la siiyo markay shaqaaqa dhacdana cidda hawsha kule loo daayo waa khadar maxamed maxamuud khadar qulle iyo cawil cabdi kaahin telefishinka qaranka somalilan jeelka weyne hargeysa